The Art of War book baa jira nin philosopher hore oo Chinese uu qoray ninka Chinese ki buugga uu qoray waa danbuu galbeedka gaadhay reer barigu aad bay u yaqaaneen waa nin philosopher janan ciidanna ahaan jiray la taliya madaxweynena ahaa dabeetana dowladdii wuxuu qoray buug la yidhaahdo The Art of War qaabka loo dagaalamo dagaalka loo galo marka wuxuu ka warramayaa cid kaa xoog badan haddaa istishaan maxaad yeelaysaa colaaddu hadday adiga iyo kaa dhaxaysa maalan wuxuu ninkaa xoog weyn haddaad la dagaalanto oo dagaaladin dhex marasaad yeelaysaa gacantiisa iyo nabarkiisa gacantaad uma waabin karto ma celin kartid colaadna waad huran tahay maxaad samayn buu isweydiiyey waa masalada ay ka ratibantay dagaaladan qaabkan loo dagaalamay kung fu-ga iyo waxa kale la yidhaahdo Chinese-ka iyo maxaa la yidhaahdaa Japanese-ka iyo dagaaladan ay galaan waxay yidhaahdaan waxa ugu fiican ee lagu dagaal galaa waa cadowgaaga xooggiisu aad adeegsato waxay مثلا hadduu feerka kugu soo tuuro waanad celin karaynin isku day inaad ka gaban karto inaan wejigaaga ku dhicin laakiin stepka labaad aad samaynaysaa waa maxay gacantiisii markaa qabo oo isa sii raaci xooggiisii isagu soo waday isaga u adeegsamay leeyin inaad tuurto markaa idan waa falsafa la yidhaahdo art of war ugu fiican waxa weeyaan bay yidhaahdeen dagaalka inaan adiga xoog iyo xoolo toona kaaga bixin laakiin cadowgaagu inuu xoog iyo xoolihiisa isagu isku dumayo wax Soomaaliya ka jiro kale Soomaaliya ma cid baa xoolo kaga baxday inay dunto no xoog iyo xoolaha iyo dagaalka iyo geerida iyo xabadaba yaale in Soomaaliyeed baa caalam islaam oo dhammaan wasata waxa Iraq ka jira waxa Suuriya ka jira waxa Liibiya ka jira waxa Masar ka jira waxa وحقودي بس كو استعمالها عدونا وكلا صعبتهم إذا أزمات كعالمية أنبياء الصومرتي سيو دويين أي سويدين تله وحي سويدين تله وحي تهاي الانحرافات البشرية تاريخ بني آدم كمر كاد يعطو بلد كومها تتكبر باوها استا كل با مشكلات تقبصت مثل مدينة دوني الصومرين ما هي بلد كومها دونيدن iyo inxiraafka iyo waacashada iyo dulmiga iyo waxa kaneen badan bay dunida soo yaaleen soo jiray oo kolba la islaaxinay idan taariikh al-inxiraaf al-bashari waacashadii bini aadamku waacday iyo sidii loo saxay ay ka waramayna marka waxaan leenahay dacwada aynu sheegayna taariikhdeedo laga waramaya hadafka ay leedahay waa in cilalkaas iyo mashaakilkaas lagu daweeyo xageeba taariikhda aynu rabnaa saxda laga baaraa أي مصدر حقين كرر عنا تاريخ دي آدم هو صامري وحول الله لن يدقال صامري وحول بصار كي أنت بدن مشكلة باجست كتب التاريخ إليه أنت بدن كتب التاريخ وحيكور رمان التاريخ السياسي للأمة وحيكور رمان أنت بدن تاريخ السلطة أما وحيكور رمان تاريخ الملوك والجيوش هذا مكان كتب التاريخ أنت أبو بدن لا أكتو أو استراد آخر بالتاريخ ده وحي كورما يا وحويان بقربان لردي بقربان ما شغل صدي عيد ما مال فرطي تاريخ الملوك والجيوش فقط لقى ما يابو إن التاريخ تاريخ فتح القلوب إن كواركتو بني آدم مثلا مسلمين تهور السيبة دول البي فرتين فتوحات إسلامية ترى بدن بهجري صحابة دي مركو النبي وكتبه عليه الصلاة والسلام وحب الأبناء الدين تحنباران وهي عالم كفرتان لكن عندما الدقال لما ينو انت بدن نقالنا صماها حينو نقالنا خالد يوم حنقول هذا عمرو بن عاص يوم القعقاع بن عمرو رجال كي سيفت ستيبينو انت بدن نقالنا تاريخنا انت بدن يالقا وروا لكن كواس النور كيف فرتينه يا قلوب ضدك فرتي يا إسلامية دكان عيدا كلا شري كقال السن كحب بدن عيدا كسيفتين ونكرنا وهذا كيف فتح القلوب كسمي ولا فتح الأرض ما يسميس ذاتك قلوب بني آدم كفرتي الدنيا دنو بدلي عالم كيف فرتين وعالم إسلامي يا الله
هذا واحد لأنه كتب التاريخ يا وفي عن التاريخ لقى بعضها حلنا مستر كوروح بدن التاريخ لقى بعضها وإلهي كتاب كيس يكون الرئي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا عهد النبي محمد با مستر كتاريخ وفي عن لقى بعضها ولي بالله بشيء وضله وتاريخ صحيح وموثوقة وتاريخ له كلسوية هي لكن هو تاريخ دراسة وباحث الرسل والرسالات هي مشاكل كيسو مري هديت مشاكل سياسية مد دقالة مد والبا هي سيدة يحللين إلهي قرآن كوكا قوار رميا قرآن إلهي كوكا قوار رميا بغرى مسلمين وشري دعوة إسلامية وشرتي نبي الرسل وحكا ورميا عكسها بغرى قالت يا ظالمين قرآن كوكا ورميا إذن تاريخ بني آدم قديم أوثق خطاب لقى بارا وإلهي كتاب كيس القرآن سادرات الحلا النهي إلهي مركو ينور رمي وحلا إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما إلهي وخورما يا نبي محمد وحي عليه الصلاة والسلام سيدي وحي أنبياء كهرسي أنبياء بدن با إلهي تري أنبياء دي الرسل شيء تاريخ دا أدنها مثلي بدنا واندين كورمي با إلهي لي بدنا يدين كما ورمين وحي إلهي شيء الرسل شاس وحالله صادرين يهيد يقوا مبشرين ومنذرين وحالله صادرين إنه حجة كؤوغان أدنها نبينا عليه الصلاة والسلام حليه حديث صحيحين كبير أنا جايام بيدي هروحان نسكنها سيدين قري لسي أو وناتشيو برحيي أو كتجون مال لبنا حبت بلوكيتي أما جاجوري ما لا يقشوا دابا تنقف كنت كسا ورقة وده قري قروات بو قروح بدي طلعوا ما هل كان لبوحيو فأنا اللبن أبو نبوة المامي أنا قا حبدي جاجوري ماشنا الوطر لبوحيه وأنا خاتم النبيين إذن أيها الأحبة مركينو بني آدم سيال الله إصلاحية مركينو كور رمين أحسن تاريخ للدراسية والقرآن كتالا ومدى النبي محمد وحي إلهي كو أمانا يبوين الشقادة قواتي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير أمة أخرجت للناس بالوشي ومتيو خير بدنا إذا ضدك الله صار وحين سويديننا مركا أيها الأحبة رسوشة هي الرسالة رسولك هي مسج كوسيدو وحي قالوا سوديبي وحي وذا قام بهجره وهذا القرآن كأخرجه رسولك استمر كأخرجه وهذا ليس كومن فاكتور يصير وذاك وحكى الحياة قصص كونان وحاسي وحاي تلماميا إن يهين معذة وقم مهم سن تاريخ بني آدم كمركة أطربتين تسبدل سميس كسطو أطربتين تسبدل سميسو وضد الرسوش مرتي إيه إلهي سبحانه وتعالى يرد المام وحلق بلاب النبي قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب دين توحى لي دين جدي بالي وحي لو وحيو ذي الله دردار من نبي نوح والذي أوحينا إليك إيا كانوا هذه النبي محمد وكوسى وحيوني إيا وحي أنو دردارني نبي إبراهيم إيا نبي موسى إيا نبي عيسى إذن أنبياء درار نبي وحي اسكمده أي دين كسيدي لأنه وكوكا لقد سناي
waxyiga isku midka ay sideen waa maxay waa waxyiga tilmaamaya furaha bini aadamka fura jira qofka bini aadamka haddaad rogto bes wuu furmay albaabka haddaad qafilka furiisa heshana si fudud baad u geli kartaa haddaanad furaha hayninna dee ama albaabkaad jabin ama rabshad kala dhigi waa adkaanaysaa inaad gudaha gasho aadanaha waxaa jira meel laga furo bini aadamka waxaa jira meel laga furo furahaasi hadduu rogmo waxa laaliya waxa ku xiga it will be easy waa fududaanaysa hadduu se kaasi ku rogmi waayo waa adagtay kufaakac ka bixi maysid inaad kufto oo kacdo ka bixi maysid waa maxay kaas ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إلهي وحولي أمتك الرسول بانو صادري نبي وحل ويلي وحي النبي إبراهيم له وحي يا نوح يا موسى يا كواس موسى وحي الله كاسار الله ينفري waxaa kaloo ilaahay inoo sheegaya nebika ummad kastoo dunida soo martay rasuul baa u yimi yani dadka badhba moodaya rusushu dhowr iyo labaatankan qur-aanku ka warramo inay tahay ama ambiyadu intan nusuustu inoo sheegtay inay tahay maya qur-aanka iyo xadiisku waxay tilmaamayaan qaar badan oo kale inay jireen nebiyadii maraykan loo soo diray ama indiya loo soo diray ama dhulka laynoogama warramay nebiyada laynooga warramay inta badan waxa weeyaan intii maxay middle east kan iyo intan intii loo soo diray weeyaan qur-aanka inta badan nebiyada ku yaala laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa fii kulli umma dunidan jirtay inuu rasuul u diray cid u digtay in loo diray rusushaasi maxay wadeen haddaba an icbudu allah anta waa tafsiiriyadii maxaa la leeyahay ucbudu allaha baa lagu soo wada diray maa lakum min ilaahin hayru ucbudu allaha wajtanibu taaguut ilaahay caabuda oo taaguutka ka fogaada waxaan alla ahayn inaa u sujuudaan ama caabudaan ama ka dambaysaan idan kalimatu tawxiid rusul oo dhan baa waday waxaa ka mid a dadkaa dad hanuunay baa ilaahay yidhi oo daadmiinis hadduu hanuuno qofku waa maxay dariiqa saxaa buu helay iyo qaar dalaaladu baadinimadu korkooda ku sugnaatay oo waa kuwii diiday bal dhulka eegoo soo eega baa ilaahay leeyahy intii diidayna saas galay idan ilaahay wuxuu leeyahay rusul oo dhammi hal wadoo qulay dadka ugu yeedheen one thing baa common factorka koowaad ah waa maxay waa cibaadat allahi waxdah waa kalimatu tawxiid waa laa ilaaha ila allah